حفلة قيمها يقايها بضن أينو ما أنت شعورتين نكون موجينينو ما أنت وحي أينو لما قدوي لما قديضود maalintii dhalinyarta wafo ay ka dhiidhiyeen dawladii rajiimka ahayd oo hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre dhalinyartii waxa way maalintii la aasaasay way wada halkii halganku ka bilaabay way dhalinyarta wafo hanoolaada ma leeyahay dhalinyarta wafo intii dhimatay Allah u naxariisto inta nool waxa way Ilaahay caafimaad qab ha siiyo waxaynu maanta halkan isugu soo baxnay walaalayaal inaynu shucuurteenna iyo qadiyadeenna iyo wax way jiritaankeenna cadow badan bay leedahay Soomaaliland walaalayaal waxaynu ka marxaatinahay dawladii rajiimka ahayd Maxamed Siyaad Barre ee shacbiga reer Soomaaliland waxay u geysatay walaashii waaweynaa waa kuwii ka sheekeeyay iyo dhibtii iyo xasuuqii ay u geysatay maanta dhayaldayl bay la tahay farmaanto dadkii uu xasuuqay inuu waxa weeye ku hadaaqo sida caruurta u yiraahdo hargeysaan tagaya miyaynu aqbali karnaa miyaynu aqbali karnaa waxa weeyaan walaalayaal maanta madaxweynaha talada dalka ayaa Muuse Biixi Cabdi wuxuu hogaaminayay ururkii Islam duurkuu galay waxa weeye naftiisu u huray maanta waxa weeye waa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta ma farmaajo madaxweyne Muuse ayaa haybsan kara ma kaasa isku dayi kara harkiisa maaha mana soo agmari karo waxaynu u sheegaynaa shacbiga reer Soomaaliland cadowgoodu badan yahay waa inay u diyaar garoobaan rag iyo dumarba difaaca qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo hambalyeena walaalayaal ciidamada qaranka dhammaan ciidamada qalabka sida ee waliba kuwa jiida jooga ee difaaca qaranka ku jira hanoolaadaan banuleena war gaaban hadalkeed gaaban waxaynu walaalayaal hambalyeena madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland khudbadii qiimaha iyo qaayaha lahayd ee uu ku horjeediyay labada gole aad iyo aad baynu hambalyeena madaxweynaha waxa leenahay hambaliyo waxaan leenahay madaxweyne ururada siyaasadda waa ku dhawaaqday doorkii dadkii dhalinyarta ahaa ee damacoogu meelaha gadaadada fadhiyay xisbiyadana meel ay ka garan waayay aad baan kuugu hambalyeynaa madaxweyne haddii aad ururada siyaasadda u furtay waxaan leenahay hambaliyo baan leenahay dhalinyartii hankoogu ku jiray ee oran jiray xisbiyada deedo muxuu ahaayay rag baa hortaagan nin walba ka faa'iideysan lahayd barbarkay ka baxdaa barkay galeen ka faa'iideysan lahayd walaalayaal Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha guulaysato cadowgeed ha jabo taasaan walaalayaal ku soo gabagabeynaya goor gaaban hadalkeed gaaban mar labada walaalayaal waxaan aynu hambalyeynaa ciidamada jiida jooga ee difaaca qaranka ku jira waynu hambalyeynaa iyo taliyaashoodaba aad iyo aad baynu walaalayaal u hambalyeynaa waxa kale aynu walaalayaal hambalyeynaa labada gore ayaynu hambalyeynaa baarlamaanka iyo guurtida ayaynu iyaguna hambalyeynaa billahi tawfiiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.